kulanti wanaagsan saaxiibayaal subax wanaagsan maalin wanaagsan habeen wanaagsan waqti walba inay tahay wanaagsan ku soo dhawaada xogihii ugu dambeeyay hadaba maxaa cusub ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa gabi ahaanba loo diiday cusboonaysiinta baasaboorka diblomaasiga Maxamed Xuseen Roble ayaa ku sugan magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya safaaradda Soomaaliya ee magaalada Nairobi ayuuna ka xaraystay codsigaasi waxaana gabi ahaanba ishortaagay xubno sarsare oo kamid ah xisbiga talada haya maandhaha mas'uuliyiinta ugu sareeya dawladda federaalka ee Soomaaliya hadaba yaa u diiday waa kuma shakhsiga u diiday ee hor istaagay cusboonaysiinta Maxamed Xuseen Roble loo cusboonaysiin lahaa baasaboorka diblomaasiga maxaa loogu diiday oo maxay tahay sababta loogu diiday xagee ayuu uga ambabixi rabay Maxamed Xuseen Roble hadii uu ka dhacay baasaboorku muxuu ku joogaa dalka Kenya xoga badan oo aynu ka soo ururinay arintaasi saacadihii la soo dhaafay baraha bulshada sida weyn u haysata ayaan qodobkeena koobaad ku dul istaagi doonaa hadoo allaydmo dhinaca kale too xisbiga talada haya ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dacaayado dhaqaale badan ku bixinaya taasi oo la xiriida dacaayado markaasi ama dacaayad ay markaasi ka faafinayaan xisbigii hore ee nabad iyo nolol ee gudoomiyaha uu u yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhowr iyo 10 saac ee la soo dhaafay warbaahinno kala duwan ayaa dhaqaale lagu siiyay sidii dacaayad ay uga fidin lahaayeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xisbigiisa nabad iyo hadaba maxay tahay dacaayadani maxaa laga faa'iidayaa nabad iyo nolol see arrimaha lagu eedeynayo maxaa ka jira iyadana waa soo qaadan doonaa hadoo allaydmo waxaan dhinaca kale dul istaagi doonaa siyaasiyiinta sida weyn uga falceliyay tallaabooyinkan dawladda federaalku ay u qaaday dhanka joojinta iyo hor istaaga dib u cusboonaysiinta baasaboorka ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble hadaba Maxamed Xuseen Roble naftigiisa shakhsiyadiisa iyo qofka uu yahayna iyadana waa soo qadan doonaa hadoo allaydmo soo dhawaada muuqaalka like saara aragtidiina nugula wadaaga qaybta commentiga aynu ku bilownay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa laga hor istaagay dib u cusboonaysiinta baasaboorka diblomaasiga oo 5 sano mar dhaca oo 5 sano hadda uu watay markii laga soo tiriyo maalintii xil qabashadiisii iyo sidoo kale waqti xaadirkan hadda uu yahay maarta waqti xaadirkan inta ka soo wareegtay markii laga xisaabiyo Maxamed Xuseen Roble ayaa fadhigiisa u yahay magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya waayihii dambana halkaas ayuu ku sugnaa waxa uuna codsi u gudbistay oo codsigaasi ka xaraystay safaaradda Soomaaliya ee magaalada Nairobi waxaana gabi ahaanba laga hor istaagay oo loo diiday in loo cusboonaysiiyo baasaboorkaasi ka dhacay ee waqtigiisa uu dhamaaday Maxamed Xuseen Roble waa shakhsigii ka dambeeyay guushii Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ra'iisul wasaare ahaa xilligii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hadii taariikhdaasi ama xilligaasi siyaasadda Soomaaliya aadan la soconin iyadoo taasi ay jirto oo Maxamed Xuseen Roble uu yahay shakhsiga koobaad ee abaalka kule Xasan Sheekh Maxamuud haddana laguma tixgelinin oo waxaa loo diiday dib u cusboonaysiinta baasaboorkiisa oo uu waliba xaq ugu leeyahay qarankiisa Soomaaliyeed ee uu soo shaqeeyay khalad iyo sax si uu ugu soo shaqeeyay dadku kale waa ku kala aragti duwan yihiin ee muddada 2 sano iyo waliba dhowrka bilooda uu ra'iisul wasaaraha u ahaa waxaa gabi ahaanba loo diiday in loo cusboonaysiiyo baasaboorkaasi waxaa la sheegay wararku ay sheegayaan inuu doonayay inuu u safro dalka South Africa halkaas oo casuumaad rasmi ah uu ka helay qurba joogta Soomaaliyeed ama jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku sugan dalkaas South Africa Maxamed Xuseen Roble sida wararku ay sheegayaan waayihii dambaba waa mid ka mid ah musharaxiinta u tartamaya kursiga madaxweynaha Soomaaliya waana ra'iisul wasaarihii hore waana saaxiibkii Xasan Sheekh Maxamuud ka dambeeyay in kursigaasi uu ku guuleysto iyadoo intaas oo dhan ay jirto haddana filla Soomaaliya ama madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kuma aysan xurmaynin run ahaantii abaalkii uu ku lahaa ee uu soo galay xilligii uu Xasan Sheekh Maxamuud siyaasadda banaanka ka taagnaa uu tartamayay kursiga madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble gabi ahaanba waa loo diiday waxaad isweydiinaysaa adiga daawanaya yaa u diiday Xasan baa u diiday Xamza u diiday yee qusaysa codsiga warqadan waxa ay marka hore horta xareynaya qofka waa muwaadin wuxuu ka xareysanayaa safaaradda Soomaaliya waxa ay ku dhacaysaa laanta immigrationka ee ay qusayso waxa ku shaqale markii la yiraahdo diblomaasi la yiraahdo waxa ku shaqale wasaaradda arrimaha dibadda
wasiirka arrimaha dibadda iyo ku-xigeenkiisa ayaa saxiixa iskale waxay la tashiye la sameynayaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha labada mas'uul waa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha saddexda qof ayaa ku shaqale markii la yiraahdo diblomaasi la yiraahdo warqada diblomaasiga la rabaa inay bixiyaan laanta immigration-ka codsiga uu ku dhacaya laakiin qofka la siinayo kama go'aan gaari karaan hadduu xataa horey u soo haysta uu ka dhacay iyo hadduu qof cusub yahayba iyagu kama gaari waxa weeye kama go'aan gaari karaan in baasaboorka diblomaasiga qofka loo cusboonaysiiyo ama qofkaasi la siiyo baasaboor diblomaasiga waa wasiirka arrimaha dibadda ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha markii loo diiday warqadan oo la hor istaagay dib u cusboonaysiinta wuxuu ra'iisul wasaaruhu codsi u diray waxaan aan dhahnay ra'iisul wasaarihii hore weeye uu codsi u diray ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo shakhsigii uu xilka ku wareejiyay waxa uu sidoo kale warqada codsiga u diray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud dhammaantood codsiyadii ay u diray kama aysan soo jawaabin wax jawaabana kama aysan soo bixinin oo la xiriidha in loo fasaxo warqadiisa ma aha mashruucu ka dalbanayo iyo xiriir dheer iyo wax u baahan waqti dheer toona waa hal telefoon ay diraan oo ay dhahaan wasiir hebelow Axmed Macalin Fiqiyow warqada ha loo fasaxo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya waa inta kaliya ama message oo WhatsApp ay ku qoraan oo dhahaan warqada ha loo fasaxo inta kaliya ayuu ka saarantahay in uu qaato baasaboorkiisa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble laakiin waa loo diiday waxaa la tusiyay inaan marna la siinaynin waji kale ayaa loola soo baxay oo uusan filaynin Maxamed Xuseen Roblena wuxuu islahaa abaal badan baad u gashay oo dawladda waa taadi buu islahaa laakiin waa looga booday waa abaal la'aantii uu sheegayay ninkii la dhahayay Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu yiri Xasan Sheekh Maxamuud abaal ma galo waa abaal laawo uu dhahayo way tiiba horta maanta meesha taagan Maxamed Xuseen Roble mid kala haysata taa abaal dhaca mid kala uga daran khiyaamadii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu khiyaameeyay ayaa iyada haysata Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu khiyaameeyay way ku soo baxday khiyaamadii ninkii raggu shalay wax u khiyaameeyay ee u gacan bidixiyay soo ra'iisul wasaare ah oo doorashada leeyahay qabo si xor iyo xalaal u qabo ayaa raggu shalay u gacan bidixiyay baa maanta isaga dhulta ugu jiro halka ku dhagay oo baasaboorkiisa muwaadinimo sharciga u lahaa ayay u diidan yihiin waa qiso kaleeto oo xanuun badan oo haysata ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble gabi ahaanba waa loo diiday warqadiisa waynu eegi doonaa wixii ka soo kordho siyaasiyiin badan baa ka falceliyo oo ka mid yahay Fahad Yaasin Xaaji Daahir oo looga bartay in uu markaasi update u yahay arrimaha siyaasadda iyo sidoo kale in aragtidiisa uu ka dhigto ninka la yiraahdo Fahad Yaasin Xaaji Daahir wuxuu yiri mudane Xamse Cabdi Barre wax walba in uu adeeco madaxweynihiisa waan ka filayay buu yiri laakiin marnaba kama filaynin buu yiri in mas'uulkii uu xafiiska kala wareegay oo xurmad darro sidaas xurmad darrada oo waxa weeye ula dhaqmayo ma filaynin buu yiri kama filaynin buu yiri in uu dhigan uglaada Xasan waa filayay laakiin in uu waxa weeye sidaas ula dhaqmo mas'uulkii uu xafiiska kala wareegay marna kama filaynin xurmad darrada inta leeg buu yiri si kastaba xaaladdu waa taagan tahay weli way taagan tahay madaxda dawladda weli war kama soo saarin ra'iisul wasaaruhu Nairobi uu la sugan yahay waxa weeye waa laayahay warqadiisii waxba gacan kuma hayo xaalkuna waabaana ku bariyay qurba joogta South Africa ee doonayay inay casuumaana de waa sugayaan waynu eegi doonaa wixii ka soo kordho dhinaca kale xisbiga Damu Jadiid ee madaxweyne Xasan ayaa dhaqaale badan ku bixinaya faafinta dacaayad laga faafinayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xisbigii Nabad iyo Nolol waxaa 12 saac la soo dhaafay warbaahin badan ay ku bixiyeen ku siiyeen dhaqaalo si marka loo faafiyo dacaayad la xiriidha in xisbigii Nabad iyo Nolol ay kala tageen oo burburay Farmaajana uu qoys ka taagan yahay in uu u tartamo kursiga madaxweynaha waxaa rabaa markaa ummadda Soomaaliyeed in arrinta aan u cadeeyo horta xisbiga Nabad iyo Nolol ma ahayn laba shakhsi iyo saddex shakhsi xisbi ballaaran oo dal iyo dibadba laga buuxo culimada caalaba ay ka buuxdo siyaasiyiin iyo shacab ay ka buuxaan ayuu horta ahaa shakhsi baa ka tagay la yiraahdo Fahad Yaasin Xaaji Daahir walow nin miisaan la u yahay oo dhanka siyaasadda markii la yiraahdo haddana shakhsi weey
markuu Fahad Yaasiin imaanayayna xisbiga wuu jiray oo farmaajo watay Fahad Yaasiinna shakhsi ku soo biiray buu ahaa marka Fahad Yaasiin baa ilaa hadda iyo ninkii la dhigay Cali Yara Cali baa la ogyahay inay ka tageen waxa ka culus nimankaas oo ka inkaaran siyaasiyiin badan oo weli ku jira oo ayagu warkoodu aan banaanka u soo bixin laakiin wax walba hoosta ka kala gooya waxa ku jira rag milyaneer oo Soomaaliya oo xisbiga garbaha haya waxa ku jira dad mutacalimiin oo aqoon-yahana oo ayagana qalinkooda meel walba uu gaari karo ayaa ku jira waxa ku jira bulsho kale oo fara badan xisbigu marka ma burburin waa dhisay yahay farmaajo muxuu hadli waayay haday tahay qorsho farmaajo hadal loogama baranin markii hore ra'iisul wasaaraha waagu ahaa isagoon hal mar hadlin bay doorashadii ku soo gashay tartan uu ku galay oo xilligii ugu horeeyay musharaxnimada isagu cadeynayay waqtiguna uma dhamaadayba waqtigaas baa hadal ugu dambeysay marka farmaajo loogama baranin dadka waxa xigta xukunka qofka uu leeyahay ku dhegdhega waa nin iskala qabweyn oo arintaasi aan galin weeyay farmaajo wuxuu aaminsan yahay wadaniyadnimo iyo inuu isagu waxa weey kursiga qofku ilaahay u qoro uu ku guuleysanayo ma aha qof dheer daba dhereera oo daba socda qofka shaqeynaya ee markaasi mandate ka haysta dawladda hadda jirtay mandate bay haysataa khaladaad badan bay galaysaa waan aragnaa wax walba waa la arkaa laakiin farmaajo loogama baranin in waxyaabahaasi uu ku dhegdhego loogama baranin qofkan waqtigiisa markuu dhamaado oo xilligii doorasho la gaaro markaas buu iskeenaya oo hadal bilaabaya oo uu leeyahay doorashaha naloo qabto waqtigaasina dawladda waqtigaasina waa siinay way soo shaqeysay waxay qabatay waa u qabatay hadda tartan la galo marka hadii aad rabteen marka ay rabeen inuu hadlo oo lagu dhegdhego oo la daba joogo oo waxa weeye kolba meel laga qabto oo leeyahay uu hadlay sidan u yeelay qaaq ay rabeen farmaajo sida ma aha xisbiguna waa dhisay yahay mar dhowna muddada hadda sanadkii u dhiman doorashada qabsoomideeda ama doorashada xilligeeda ama muddaxileedka xasan inta u dhiman baa la sugayaa insha Allah waxa rajaynaynaa in nabad doorashadaasi ay ku dhacdo walow hanaankeeda aysan muuqanin oo xasan uu qorshayaal gurracan u wado haddana uu bilaabay dacaayad baa uu leeyahay farmaajo tagay baa ku dhacday xisbigii waa burburay sidan ay noqotay uu leeyahay oo dhaqaale lagu siinayo qaaqlayaal iyo sidoo kale kuwa warbaahin isku sheega waynu eegi doonaaba waqtigiiba waaga barigiisu ka dhiman yahay wax yar baa dhiman wax yar insha Allah dinkii naftiisu ay gaadho waynu eegi doonaa wixii ka soo kordho muqaladana dambe ayaan idin kula wadaagi doonaa anigoo santaag ayaa inala socodsiin doona halka naga tawareysana waa Warsame Media